رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. waxaa laga wariyey caaishata xaaskii nebiga sala allahu calayhi wasalam in ay tidhi nebigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu ahaa midkii ictikaafa tobanka dambe ee ramadaanta ilaa alle uu ka oofsaday kadibna xaasaskiisu way ictikaafeen gadaashiis. bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo saaray. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.